الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيكذا قوبي سطنا الحمامتان والحب لبدي حمام يمره وحال يري لبا شمبيرود oo xamaama ayaa buulkoodii ka buuxsaday buriya sarreen ninka ayaa ku yiri midii la digay wixii aan meelaha ka soo helno ayaynu cunaynaa oo ku noolaanaynaa wixii aan buulka keenay waxba ka cuni mayno marka qabowgu soo dhaco oo aan waxba laga helayn meelaha ayaan wixii aan kaydsanay cunaynaa arrintaa way la qaadatay tii dhadigeed oo waxay tiri waa hagaag waa inoo sidaa miruhuna waxay ahaayeen marka ay soo dhigayeen kuwa burburan oo biyo ka buuxaan waxaana buuxsamay buulkoodii kii labka ahaa wuxuu aaday safar waxaana yimid xagaagii midhihiina waxaa ka baxay biyihii oo waxay ka yaraadeen intii ay markii hore ahaayeen markuu soo noqday kii labka ahaa oo u arkay midhihii oo intii uu ogaa ka yar ayuu ku yiri tii dhadigeed miyaynan ku heshiin inaynaan midhaha waxba ka cunin maxaad u cuntay way dhaaratay tii dhadigeed inaanay waxba ka cunin kii labka ahaa warka ma rumaysan oo ma aqbalin wuxuuna bilaabay inuu dhirbaaxo iyo afka uu ku bilaabo ilaa ay ka dhimatay markii qabowgii soo dhacay oo roobkiina daay oo midhihiina biyo ka buuxsameen oo ay buulkii buuxsheen kuna noqdeen sidoodii hore ayuu markuu arkay qoomamooday oo jiifsaday meydka agtiisii isagoo u dhawaaqaya sidee nolol iigu habboon tahay anigoo kuu yeerayo aan ku helahayn faallo sheekadani waxay u egtahay sheekadii ninka iyo soongurka ee inoo soo hormartay waana cirib dambeedka degdegsiimaha bini'aadmiga ku dheehan waxayna ku soo gudhaa oo ku soo ururtaa qoomamo iyo iscilkaambi sheekada 12 almalakul jardaan boqorkii jiirka waxay sheegeen in dhul ka mid ahaa dhulka Hindiya oo la oran jiray Doraad dhulkeeduna uu ahaa kun arifoof dhexdeedana ay ku tiil magaalo la oran jiray Badaruur ayna ahayd magaalo dad badan oo cimid loo degan yahay dadkeeduna si wanaagsan u nool yihiin uu si joogay magaalada jiir la oran jiray Meherayis wuxuuna ahaa boqorka jiirka ee magaalada iyo beeraheeda wuxuuna lahaa 3 wasiir oo uu kala tashado amuurihiisa oo dhan mid ka mid ah waxaa la oran jiray Rawtabaad wuxuuna ahaa mid caqli iyo xikmad badan arrintaasina wuu ogaa boqorku oo wuxuu ku ogaa siyaasad wanaagiisa kan labaadna waxaa la oran jiray Shiira kan saddexaadna Baghdad had iyo goor boqorku wuu la tashan jiray sidii loo hagaajin lahaa xaaladaha raaciyada boqorka iyo wixii la halmaala maalin ayay shireen boqorkii iyo caawiyayaashiisii waxayna ka wada hadleen arrimo fara badan oo khuseeya danta boqortooyada waxayse ugu dambeyntii isdul taageen hadal sidan u dhawaaqmayay war ma laga yaabaa oo ma dhici kartaa inaan ka gudubno wixii aan ka dhaxal aabayaasheen ee ahaa baqdin iyo warwar ay ka qabaan bisadaha inaguna aan weli ka qabno baqdin bisadaha ma suuro geli kartaa inaan ka gudubno oo soo afjaro waxay yiraahdeen labadii wasiir ee Shiraac iyo Baghdad adaa boqorow noo madax adayna kugu dhamaataa oo kugu soo ururaan aragtida iyo caqliguba waxay si ahayd isha boqorku mid ku foorarta xagga wasiirka saddexaad markaasuu arkay inuusan waxba ku darsanaynin hadalka ayuu si cara leh boqorkii u yiri war kanow maad wax naga tidhaahdid oo noo sheegtid waxa aad ka qabto arrinta maxaad u aamusaysaa oo isaga dhigay midaan waxba ka maqlayn oo wax oran karahayn markuu maqlay hadalkii boqorka ee dhiifta lahaa ayuu yiri ma wanaagsana inuu boqorku iigu cadhoodo haddii aan ka aamusay hadal ilaa iyo hadda waxaanse sidaa u yeelay inaan dhegaysto wixii ay ka dhahaan saaxiibaday oo dhammaystir ah oo aan fikiro kadibna dhaho waxa ay ila muuqato boqorkii ayaa yiri dheh iminka waa ku banaan tahay wuxuu yiri waxa aan hayaa waa wax intaa ka badan wuuna og yahay boqor inuu leeyahay siyaasad uu ku gaaro arrintiisa ku saabsan fikirkan wuuna ku sameeyo ka gungaad dhammaystiran haddii kale waa inuu raadiyaa cid ka tala siisa markuu intaa yiri ayaa hadalkii waxaa qaatay mid wasiiradii ka mid ah wuxuuna yiri aniga waxay ila muuqataa inaan samayno kooro jelasyo fara badan mid kastana aan sugno qooraha bisadaha si aynu digtooni u helo oo u maqallo koorta
sanqadheeda mar kasta oo ay ina soo aado ugana digtoonaano. Boqorkii ayaa ku yidhi mid xigay oo wasiirada ka mid ah, maxaad u aragtaa talada saaxiibkaa? Wuxuu yidhi, kuma faraxsani sida uu wax u dhigay. Kaba soo qaad inaan samayno kooro ama jilasyo badan, laakiin yaa intuu dhaqaaqo soo sudhaya qoorta bisadda oo aabe dhalay. Kabase soo qaad inaan qoorta u sugnay, yaa inaga ilaalinaya inaysan wax dambe ina yeelin. Maxaase cabsida inaga bi'inaya? Laakiin anigu waxaan ku talin lahaa inaan iskaga tagno magaaladan dhammaanteen muddo sannad ah oo aan baadiyaha u guuro ilaa ay dadka magaaladu ka ogaadaan oo ay ka maarmaan bisadaha, waayo dadka waxaa gaadhay dhibkeenna faraha iyo lixaadka leh, kaasoo ay daraaddiis bisadaha u haystaan. Markay ogaadaan inaan jiir keliyihii magaalada ku hadhin oo joogin, waxay nacayaan bisadaha, waxayna ka saarayaan magaalada. Markaa ayaynu inaguna dib ugu soo noqonaynaa magaaladii oo aan midh bisadii joogin. Boqorkii ayaa ku yidhi wasiirkii saddexaad, maxaad ka leedahay waxa uu sheegay wasiirkani? Wuxuu yidhi, kuma faraxsanin waxa uu sheegay, bal ka soo qaad inaan dhammaanteen wada baxnay oo baadiye aadnay oo muddo sannad ah joognay oo aan midh bisad ahi bixin oo meel qaban. Innaguna aan miyiga kala soo kulannay dhib, haraad, gaajo iyo wax baqdintan ka weyn, waayo hore uguma baran dhib. Intaa kadibna markaan magaalada ku soo noqonno oo in yar mooyee aanay arrintu isbedelin, oo micnuhu yahay markaan dhibkeennii la soo noqonno, dadkuna wuxuu la soo noqonayaa bisadihii, waxayna arrintu ku soo noqonaysaa sideedii baqdinta ahayd. Dhibkeennii miyiguna waa meelo laguma tiiriye, hal bacaad lagu lisay. Boqorkii ayaa yidhi, haddaba adigu dheh wixii kuu muuqda. Wuxuu yidhi wasiirkii, rawtabaad, arrintan u garan maayo wax siyaasad ah mid mooyee, waxayna tahay inuu boqorku qabto kulan weyn oo jiirka ku dhaqan magaaladan iyo agagaarkeeda oo dhammi ka soo qayb galo. Markaana boqorku amar ku bixiyo in jiir waliba aqalka uu ku nool yahay ka sameeyo god weyn oo jiir oo dhan qaadi kara, uuna ku diyaariyo raashin iyo biyo 10 maalmood ku filan reer jiir, uuna ka furo guriga 7 albaab oo xagga deyrka xiga iyo 3 albaab oo xagga guriga xiga, oo looga dhici karo furshaanta, khasnadaha iyo dharka. Marka howlgalka la diyaariyo, waxaan dhammaantiin degaynaa guryaha dadka xoolaha leh haystana bisad keli ah. Albaabada 7 ah waynu joojinaynaa waardiye si aanay si kedis ah inoogu soo gelin bisadu, iyo si aynu ula soconno dhaqdhaqaaqa ay samaynayso. Marka waxaynu ka gelaynaa guriga albaabada 3 ee aan gudaha ka samaysanay, waxaynuna kharibaynaa alaabta guriga taal, waxaynu se deynaynaa raashinka oo waxba yeeli mayno. Waxa aynu kharibaynaa waa dharka iyo gogosha, burburin meel dhexaad ah, si marka uu arko ninka guriga lihi uu u yiraahdo malaha bisad keligeed waxba kama qaban karto arrintan, oo uu markaa mid labaad keeno. Markuu sidaa yeelo, waxaynu sii badinaynaa dhibaatada iyo kharibaadda alaabta, oo markaa uu yiraahdo soo badintii bisaduhu waxayba keentay dhib hor leh, bal aan bisad keligeed meesha ku reebo. Marka uu bisad eriyo, ayaynu hoos u dhagaynaa wax kharibaadda. Haddii uu mid labaad eriyo, waxaynu yaraynaynaa dhibka. Marka uu tan saddexaad eriyana, waxaan deynaynaa dhibka gebi ahaantiis, waxaynuna u guuraynaa guri kale oo ka bilaabaynaa wixii aan kii hore ku samaynay. Dayn mayno inaan guri uga guurayno ilaa aan magaalada wada marro, dadkana u caddayno in dhibkaba ay sabab u tahay bisadu. Haddii ay fahmaan taa, waxay bilaabayaan inay bisadaha laayaan oo weliba miyigana ka raadsadaan. Waa yeelay boqorkii iyo jiirarkiisiiba wixii uu ku taliyey wasiirkii. Kama soo wareegin sannad keliya ilaa la wada dilay bisadihii magaalada iyo aggeeda joogay. Waa tagtay quruntaasi, waxaana bilaabmay kacaan cusub oo la kacay nacaybka bisadaha, kuwa oo marka jiirku wax beleeyo odhanaya, war bal eega oo ma bisad baa magaalada timi. Sidaa oo kale marka xanuun dadka ku jiifsado ama xoolaha halaakeeyo, waxay odhan jireen waxaa laga yaabaa in dariiqyada magaalada bisadi dhuumasho ku soo martay. Sidaasaana jiirkii ku dhameeyey oo kaga takhalusay cabsidii uu ka qabay bisadaha. Faallo tusaalahan waxaa loo soo qaataa ciddii ku shaqaysa fikradeeda oo ka tala qaadata ciddii wax ku kordhin karta si uu uga takhaluso cadow daashaday, taasoo loo kulmiyo talo wanaag keeni karta faa'iido muddo badan la mahadiyo.
sheekada 32aad almalak wanaqiib boqor iyo god. waxaa la sheegay in meel ka mid ah webiga niil uu jiray boqorka oo wadankiisu lahaa buur weyn oo dhir badan leh, midho badan, biyo badan, waxaanay ahaayeen xayawaanka oo dhammi kuwo ugu nool buurtaasi wanaagsan. waxaase jiray karin buurta ah oo ay dabayshu marka loo qaybiyo 7 meelood meel ahaan dhammaan dabaylaha dhaca ee 300 iyo 100 barkiis ee adduunku ka soo geli jirtay. waxaana karin godka u dhowaa guri daar ah oo aad loo wanaajiyay dhismihiisa aanna lagaba heli karin mid loo dhigo adduunka oo dhan. guriga waxaa la dejin jiray boqorka martida u noqda, wuxuuna ahaa meel qurux iyo nabadgelyo isku darsatay. boqorku wuxuu lahaan jiray wasiir uu kala tashto amuurihiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayuu la tashtay oo wuxuu ku yidhi, ma ogtahay innagu waxaan ku noolahay wixii ay aabbayaasheen hore u soo sameeyeen ee farsamo wanaag ahaa. arrimuhuna waxay u socdaan si la jeclaysto. waa kanoo gurigii ay dhiseen ayaan dhex joognaa. haddiise aysan jiri lahayn dabayshan faraha badani, waxaan ahaan lahayn meelaha ugu dheregta badan adduunka. innaga jidkeennu waa inaan bedelo. waxaaba laga yaabaa inaan helo arrin aan ku awdi karo karin godkan ay dabayshu ka soo hawleedahay. wasiirkii ayaa yidhi, waa arrin weyn, mana awdi karaan xoog iyo caqli badan waxaan ka ahayn. boqorkii wuxuu fekeray wax yar, kadibna wuxuu amray in la soo baxo oo aanay ciidina shirkaa ka maqnaan. maalinta hebla bisha hebla cid walibana xaabo ha soo qaado. dadkii waa yimaadeen, xaabadiina waa keeneen. boqorkuna wuxuu ahaa mid yaqaan wakhtiga ay yaraato dabaysha karin godka ka soo baxdaa. markii wakhtigii la gaadhay ayuu amar ku bixiyey in godka lagu gufeeyo dhagxaan, xaabo iyo ciid. way yeeleen oo waa joojiyeen dabayshii ka soo bixi jirtay karin godka. dalkii waa waayay dabayshii iyo naacawdii, dhirtii waa qallashay, biyihiina waa gureen. kamay soo wareegin 6 bilood ilaa biyihii la waayay, dhirtii qallashay oo bixi weyday. waxayna abaartaasi gaadhay ilaa 100 adhifoof. waxaa macaluul u bakhtiyey xoolihii, ugaadhii iyo dhammaan xayawaankii. dadkiina waxaa ku seexday xanuuno qushumuc oo waxaaba dhintay xoolo fara badan. waxaana halakeeyey oo gees walba dadkii kaga yimid dhib. waxay ku xoomeen albaabkii boqorka iyo kii wasiirka, waxaanay garaaceen oo dileen. cidina kuma hadhin. waxayna tageen iyagoo gadoodsan karin godkii, waxayna ka yeeleen baaba iyo waxaan jirin. xaabadiina way gubeen oo way oloshay. markaa ayay ku soo noqdeen goobahoodii. intaa kadib dabayshii 6 bilood meesha ku cabursanayd waxay soo jebisay karkaarada, waxaanay dabkii gaadhsiisay wadankii oo dhan. waxayna dabayshaasi dhacaysay 2 habeen iyo 2 maalmood. ma ay reebin magaalo, tuulo, geed, qasri iyo cariish toonna, ilaa way wada gubtay. faallo tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay ciddii isku hawsha inay beddesho abuurka alle ee uu ku abuuray si ku habboon wax walba. haddii wax la kordhiyo ama la dhimo, waxay dadka ku keentaa dhib, mana uu guulaysto isku daygaasi. dabeecaddii la dooriyaana waxay keentaa dhib aan laga bixi karin, sida ugaadha oo la laayo oo laga dabargooyo dhulka ilaahay ku abuuray.